asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadda wadayaal meel kastood joogtaan waxaad ku soo dhowaataan warka Arabsiya News qodobada aad wararkayga xilligan aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah wafdi ka socda dalka Djibouti oo soo gaaray magaalada Hargeysa iyo xukuumadda Somaliland oo soo dhaweyn ku qaabishay qaramada midoobay oo ku baaqday in la baaro taariibayaal dhintay kadib markii la gubay doontii ay saarnaayeen qaraxyo gilgilay magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine kadib weerarkii ka dhacay buundada isku xidha Ruushka iyo Crimea daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorkaroon warkeena kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan warkeena fidsan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo xubno wasiir oo ka tirsan xukuumadda Somaliland ayaa madaarka Cigaal International Airport ku soo dhaweeyay wafdi ka socda dawladda Jamhuuriyadda Djibouti wafdigan ka socda dalka Djibouti ayaa u yimid ka qaybgalka aaska xildhibaan Maxamed Axmed oo maalintii shalay ku geeriyooday caasimadda Somaliland ee Hargeysa iyagoo siday tacsi ka timid dawladda dalka Djibouti iyo shacabkaba wafdigan waxaa ka mid ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dalka Djibouti Saciid Nuux wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo jeelasha Cali Xasan Bahdoon wasiirka wasaaradda waxbarashada Mustafa Maxamed agaasimaha madaxtooyada dalka Djibouti iyo xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo dhigiisa dalka Djibouti Saciid Nuux ayaa si wada jira tacsi ugu diray eelkii asxaabtii iyo qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo ka baxay Allaha u naxariistay xildhibaan Maxamed Axmed iyagoo marxuumka eebba uga bariyay inuu jannatul firdaws ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun shalayta waxa geeriyooday oday maanta raggii ugu foolaadka hay ugu daada weynaa qaranka reer Somaliland muddo dheer soo ahaa ilaa iyo halgankii guurtidii xagga dhaqanka iyo xagga siyaasadda labadaba qaybta weyn iyo nabadgelyada ka soo qaadatay Maxamed Cabdi ilaahay ha u naxariisto dalka Djibouti aynu walaalaha nahay waxa maanta ka yimi wafdi aad iyo aad u ballaaran oo u yimi inay ka qayb galaan tacsidaas marxuumkaas Maxamed Cabdi waxa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha Saciid Nuux waxa ka mid ah wasiirka arrimaha cadaaladda Cali Bahdoon waxa ka mid ah wasiirka waxbarashada Mustafa Maxamuud waxa ka mid ah xildhibaano waxa ka mid ah mas'uuliyiin kale oo dawladda Djibouti xilal waaweyn ka haya wafdigaas oo aad secretary generalku ka mid yahay madaxtooyada waxa maxaan ku dhahday ay noogu yimaadeen walaalnimo iyo tacsida inay qaybtooda ka qaataan saakay soo galeen oo yimaadeen hadda waxaan doonaynaa inaan qaranka u sheegno inaynu qaran walaalaan nahay laba dalo jaaran nahay inaynu ehel iyo qaraababa wada nahay inaynu maxaan ku dhahday mar walba nolosha wada qaybsano oo ay maanta ka yimaadeen dawladda Somaliland madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi golaha wasiirada madaxweynaha Djibouti oo la soo hadlay si rasmi ah waxa looga gudoomay tacsidaas ayna soo tacsiyadeeyeen haddana waan ka gudoomaynaa waa inaynu soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynayaa oo waftiga kelmadooda odhanaya wasiirka daakhiliga inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsu daa'iqul mawt halkan waxaan u soconaa maanta anagoo wafdi balaaran hor socda oo Djibouti ka socona tacsi sidna aabihii dalka Djibouti hooyadii dalka Djibouti dhammaan shacabkii reer Djibouti wafdiga balaaran hor socdo waxaanu leenahay waxaanu soconaa tacsi iyaanu soconay waxaan leenahay naga gudoomo odayga dhintay qaaliga maartay Allah u naxariisto mudane Maxamed Axmed Allah u naxariisto naxariisna ka waraabiyo waxaan leenahay horta Somaliland oo dhan Allah samir iimaan ka siiyo qaas ahaana golaha gurtida Allah iyagana maartay samir iimaan ka siiyo dhammaan shacbiga Somaliland oo dhan samir iimaan baan leenahay
iyo maaragtay sida iyo naxariis janno. dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan kooban la qaatay wafdiga ka socda dalka Djibouti ee maanta socdaalka ku yimid dalka. howlgalka qaramada midoobay ee dalka Liibiya ayaa xadii shalay waxa uu cambaareeyay dilkii ugu foosha xumaa ee loo geysto 15 taariibayaal ah oo ka dhacay meel u dhow xeebaha magaalada Sabrata ee dalka Liibiya iyagoo ku eedeeyay dilkaasi inay ka dambeeyeen kooxo mukhalasiin ah ama dilaaliin wax taariibiya. qaramada midoobay ayaa dalbanaysa in kooxaha falkaasi ka dambeeyay cadaaladda la hor keeno. meydadkan ayaa subaxnimadii Jimcihii laga helay meel xeeb ah waxaana intooda badan ay ku dhinteen dooni gubatay sida ay sheegeen howlgalka qaramada midoobay ee Liibiya iyo Bisha Cas oo isna dalkaasi ka howlgala. iyadoo weli lagu mashquulsan yahay in la ogaado xaaladda dhabta ah ayaa haddana wararka hordhacay waxa ay sheegayaan in dilkan uu ka dhashay isku dhac dhex maray kooxaha wax taariibiya ayaa lagu yidhi warbixinta ka soo baxday xafiiska qaramada midoobay ee Liibiya. ay ku boorisay mas'uuliyiinta dalka Liibiya inay si degdeg ah u bilaabaan baaritaan madax bannaan oo daahfuran si cadaalad loo hor keeno dhammaan dambiilayaashii ku lugta lahaa falkan foosha xun. Liibiya ayaa ah marin muhiim ah oo si qarsoodi ah looga taariibiya dadka. qaraxyo ayaa gilgilay caasimadda Ukraine ee Kiev kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu Ukraine ku eedeeyay weerar argagixiso ah oo ka dhacay buundada isku xidha Ruushka iyo Crimea taasoo dhalisay baaqiyo argoosi ah oo ka yimid madaxda ugu sarreysa ee Moscow. qiiq ayaa ka kacay bartamaha Kiev kadib markii magaalada ay gilgileen dhowr qarax oo waaweyn sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah. ilaa hadda lama oga waxa sababay qaraxyadani mana jira wax war ah oo ka soo baxay khasaaraha ka dhashay. idaacadda guud ee Ukraine Sasplina oo soo hay-adaha gargaarka degdega ayaa sheegay in ay jiraan dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay weeraradani ka dhacay Kiev balse ma bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan khasaarahani. daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilitabinteena wareyntan warkayga kulmi doona waxaan kaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhawaada shirkadda Border Mills waa warshada daqiiqda iyo calafka xoolaha. dhammaantiin waynu dareennay kor u kaca ku yimiday qiimaha cuntada iyo maciishada nolol maalmeedka maadaama wadamo badan ay hakiyeen cuntadii laynoo soo dhoofin jiray. duruufaha adduunka ka jiraana waa mid aynu ka faa'iidaysan karno buuxinna karno doorkii wadamada qalaad ay ka ciyaari jireen suuqyadeenna. waxa ballanqaada inay shirkaddu ballaarinayso wax soo saarkeedii una qorshaysay maalgelin cusub. shirkadda Border Mills waxay ugu bushaaraynaysaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in saamigii shirkadda dib loo furay. saamigaas oo socon doona muddo 3 bilood ah bilaabmayana bisha 7 2022. shirkadda Border Mills waxay ugu tala gashay saamiga in lagu ballaariyo suuqa iyo wax soo saarka shirkadda iyadoo ka hortagaysa sicir bararka ka jira dunida qaybta raashinka gaar ahaan sarreenka. haddaad marun xiisaynaysay inaad shirkadda Border Mills soo maalgashatid maanta ka faa'iidayso. waxaad soo maalgashanaysaa shirkad dhisan oo wax soo saar leh oo suuq leh oo tayo loo bogay iyo maamul hufan.